inaan dadka u sheego maxamed mooge dee intii taqaanayna way taqaanaa inta taqaanaana waxaa ku waajiba inay waxay ka taqaanay maxamed mooge ay ummadda kale gaadhsiiso. maxamed mooge waxaanu isbaranay 1972 maray riwaayad keeneen macallimiin siday uu ka mid ahaa magaalada muqdisho ilaa iyo gabagabada noloshiisa. maxamed mooge inta badan waa iska warhaynay ama meel baanu wada joognay. dhaqankiisu maxamed mooge wuxuu ahaa nin naftiisa u hanweyn, xarago badan. xaragadiisa iyo hanweenidiisu maasooyin iyo gabayo jira oo rag leeyahay, rag kala duwani leeyahay bay ku soo arooreen. nin naftiisa u hanweyn oo aan dhacdhaca oqoon oo aan hunguriga u shaqaynin. wuxuu ahaa nin hayalsan oo dabeecad wanaagsan oo marka si walba loo eego ka hufan turxaanta iyo ciladaha bani aadamka ku noqda dhaliilaha waaweyn ee marka dambe maaragta saameeya noloshiisa. wejigiisa had iyo goor maxamed mooge waxaa ka muuqan jirtay weji furan buu lahaa, farxad baa ka muuqan jirtay, heelanaan baa ka muuqan jirtay wejigiisa.